qorshe un temporary ahoo sidii meelahaas biyaha imaadeen xal loogu heli lahaa, qorshe kaloo kasii fogo meelihii bilaacadaas lagu keydin jiray oo qaarkood biyo ka buuxa sidii looga qaadi lahaa, meelihii carrada xirtay looga sifeyn lahaa. iyadana waa arrimo aan rabno in bulshadana kaalin nagala qaataan. bulshada qaarkood waxaa arkaysaa gurigooda keliya ka fikirayaan, biyihii yaraaya xataa iska soo leexinayaan, cid kaloo dariskay ku leexinayaan ayagoon ka fikirayn tii guud. xataa waxaan rabnaa muxuu ah xaafadaha ugu daran in bulshada intay isu timaado maamulka isu wada nimaadno, waxyaalaha xalka ugu habboonna laga gaari karo laga wada gaaro. laakiin qorshayaashaas ayagana waa wadnaa. waxaan kaloo la kaashanaynaa wadamada aan saaxiibka nahay, ayagana aan ka codsanay qorshayaashooda ayagana waa wadnaa. arrintan kale cabdiqaadir, kormeerka degmooyinka runtii waa arrin muhiima. waxaa jiro waaxda xiriirka degmooyinka oo runtii ka warqabta degmo walba iyo guddoomiye walba degmadaas wixii ka dhacayna warbixinteeda keena, kadibna dabagal lagu sameeyo. waxaa jira kulamo joogto ah aan guddoomiyaasha degmooyinka la yeelano, lagu hubinayo qorshayaashii ay loo dejiyey ama ay degsadeen maxaa ka hirgelin maxaa ka hirgelin. dhanka kale oo maamulkii maaliyadda ayagana waxaan bilownay hadda monitoring and evaluation wax la yidhaahdo oo ah dabagal iyo kormeer. ayagana waa muhim, si kale wax lagu ogaan karo ma laha. maamul wanaagna ma dhici karo haddii aanan isla xisaabtan gelin. arrinta kale ahayd iskuullada iyo macallimiinta. runtii annaga iskuullada qaar sida 15 May oo kale iskuullo oo maamulka gobolku gudoomiye arrinta cabdiqaadir oo macallimiinta ku saabsan haddaan kuu sii jiray. cabdiqaadir wuxuu ka hadlayaa mashruuc waxaa jiray la dhihi jiray go to school oo waddankan laga hirgeliyay 2013 wasaaradda waxbarashada ay hirgelisay. markaas wasaaradda aruursana ay ka mid ahayd. waxaa lagu shaqaaleysiiyey macallimiin badan oo gobollada dalka wax ka dhigayay. muqdisho ama gobolka banaadir wuxuu ka mid ahaa meelaha ugu badan ee mashruucaas laga hirgeliyey. macallimiintii mashruucii waa ka dhammaaday, maanta wax shaqo ah ma hayaan. idinkuna waxaad tihiin maamulkii gobolka banaadir, macallimiintaas shaqo ma u abuureysaan ama maxaa u haysaan? annaga waxaan wadna waxay tahay horta iskuullada aasaasiga oo dhan in maamulka gobolka uu si toos ah uga warqabo. waxaa noo socda wadatashi wasaaradda waxbarashada oo bacdama gobolladii kaleba ay iskuulladooda waxay maamushaan, gobolka banaadirna inuu arrintaas maamusho. iskuullada hadda lagu ogyahay maamulka gobolka banaadirna runtii waa iskuullo maamulka uu ka warqabo oo macallimiintii oo dhan ka warqabo. kuwa kalena waa kuwo aan wadatashi la wadno wasaaradda waxbarashada. annaga iskuul walba waxaan rabnaa in macallimiintu laha qabtiro si tayada waxbarashada u noqoto mid laisku halayn karo. ahamiyad gaarana waa noo leedahay. arrimaha kale dhalinyarada la shaqaaleysiiyey runtii arrintan arrin muhiima waaye. ra-iisul wasaare xasan cali khayrena uu bilaabay sanadkii hore, maamulkii gobolka naga horeeyeyna fursad u heleen ilaa 3,000 oo dhalinyaro ah laga shaqaaleysiiyey. ujeeddadu waxay ahayd muddo 6 bilood ah in muxuu ahaa shaqo abuur loo sameeyo. ujeeddadana ay tahay muddadaas 6 bilood dhalinyaradu inay shaqo ku bartaan, xirfad ku helaan, waayo aragnimo ku helaan, si ay ugu sahlanaato inay shaqo u dalbadaan oo ay ka mid noqdaan shaqaalaha hay-adaha kale. annaga marka waxaan rabnaa arrintaas ilaa iyo hadda ra-iisul wasaarahana waa kala hadalnay dhowr jeer. waxaanu ku ballansannahay sidii lagu joogtay in lagu wadi lahaa in la wado. waa run kuwo ka mid ah 3,000 2,000 ka mid ah bisha soo socotay ugu egtahay. marka walwal badan ay nagu haysaa haddii ay istaagto isla markiiba loogu fulin waayo waxa dhici kara. annagana waxaan rabnaa in dhammaan ganacsatada iyo hay-adaha aan dowliga ahaynba runtii dadkaas xirfadda ay heleen ka faa'iidaystaan, isla markaana shaqo siiya. waxaan kaloo bilaabi doonaa inaan furno recruitment agency wax loo yaqaano oo ah hay-ad dhalinyarada shaqo u raadisa. dhalinyaro badan baa ka soo baxa jaamacadihii. mararka qaarkood haddii shaqooyinka ajaanibta ay lasoo xayeysiiyo waxaa arkaysaa in dhalinyaradeenii xirfaddii ama waayo aragnimadii ama luqaddii ay u diido. si taas looga hortago waxaan rabnaa inaa hay-addaas shaqadii sidai ugu raadin lahayd qofkan iyo isugu raadin lahayd shaqadii bannaan si loo helo qof kastoo arday ah jaamacad ka soo baxay uu shaqo u helo. midda kale iyadana ardayda aan ka rabno waxay tahay waxbarashada aad baratay micnaheeda maaha inaad shaqo ku helaysa isla markii. waa inaad adiga sidee u diyaarsanaysaa CV-gaaga, sidee isugu diyaarinaysaa interview, sideed isu gadaysaa. soomaalidan kuma fiicna inay isgadaan. taasna waa mid u baahan xirfad iyadana aan rabno hay-addaas aan gobolka u samaynayno
inay ardayda ka saacido ee u noqoto midii u dhexeynaysay ardaydii waxbaratay iyo hay-adaha waxbarashada bixiya. sidoo kale axmed maxamed diirshe arrinta cabashooyinka wadooyinka nalalka waa dhab. nalalkii hore solarka lagu xiray qaarkoodna waxaa moodaa in waktigoodii iyagoo dhammaysan oo ay dameen. waxaan bilownay mashruuc cusub waan kasoo bilownay isbitaalka umma oo jidkan maka mukarabo o dhan nal kasta oo halaysa in la dayactiro oo la hagaajiyo. waxaan kaloo wadnaa qorsho nalalkan solarka lagu gaarsiin lahaa goobaha aysan gaarin. waxaan wadatashi la sameynay shirkadaha oo korontada bixiya oo beko ay ka mid tahay oon ka codsanay meelaha qaarkood inay iyagii noo geliyaan nalalkaas. xitaa annaga aan qarashka iska baxsano iyadana waa ay noo socotaa. laakiin waa muhim in nalalka amnigay qeyb weyn ka qaadanayaan. arrinta kale ee ah dareewalada iyo waa arrin runtii nooga wada baahan xal. iskuullada lagu barto dareewaladana la rabo in dareewalada qaarkood saa sheegaysay iyagoon si fiican wax u baranayay baabuurka wadayaan ayagana khataray isgelinayaan wadadii khataray gelinayaan. caruur badan baa nooga dhimato maalin walba wadooyinka. taas si xal loogu helana kow waxaan rabnaa inaan mar dhow muxuu ahaa hirgelino gaari walba inuu insurance leeyahay si ay u sahlanaato muxuu ahaa in dhib kastuu geysto xal loogu heli karo. labo in dareewalada ay noqdaan dareewalo la isku haleyn karo oo hadday u baahdaan qaarkood imtixaanka dib ay u fariisan karaan. ayagana waxaan isleenahay hab kale oo lagu sixi karo ayay ka mid tahay. maxaad uga duwanaanaysaa guddoomiyaashii kale? runtii aniga muddo 10 sana gobolkan joogaa muqdisho. 10 sanana xil walboon soo qabtayna kow waxaan u qabanaya waxay tahay si daacada. laba waxaan u qabanaya waxay tahay in bulshada loogu adeego. saddexna in muxuu ahaa sida ugu kartida fiican ugu inaan muxuu ahaa juhdi iyo wax walba aanan hagranin. taasna waa iga go-aantan waan samayn doonaa. shacabkaan u dayn doonaa hadhow inay xukumaan qof walba meel soo maray iyo wuxuu qabtay. ta u dambeysa oo guddiga khilaafaadka horaan uga jawaabay. waa mahadsantahay guddoomiye. dib ayaan dadkii ugu laaban doonaa si ay su-aalo iyo mar kale dib aan ugu qaadano ilaa dhowr qofoodan mar isku xijin doonaa hadduu allah awood leher alle ka noqdo. waaya nuur yarkaa hore fadhiya ka bilow fadlan. magacaaga ku bilow. asalaamu calaykum. magacayga waa abshir cabdijoolaal. abshir cabdijoolaal. horta waa salaama guddoomiyaha iyo cabdifataax iyo dhammaan martishaafka meesha iskugu imaaday. aniga waxaan kamid ah dhalinyarada degmada Howlwadaag wejiga labaad ee la shaqaaleysiiyey jaamiciyiinta. especially guddoomiyahan uu ahay. waxaan rabaa guddoomiyaha inaan weydiiyo 3 su'aal oo fursadan ka faa'iideysanahay. horta su-aasha koowaad waxay ku saabsan tahay dariseynta. waxaan ku jiraa dadkii wax ka qoray buugii dariseynta. waxaa jiro in la sameeyey halkii daris in la lahaa 50 guri waaye. 50kii guri waxaa looga baahan inuu yeesho 5 falar. 10kii guri hal falar. 5tii marka 10kii falar ama 5tii falar waxay yeelanayaan 3 nin oo ah madani iyo 15 qofood oo ah gudi. marka horta haddaa dariseen la sameyn amni ma jiraayo markii runta laga hadlo. marka 20kaas qofood waa 20 qofood oo dowladda ee ahday gobolka u dhahay way shaqeynayaan. haddana laakiin wax xuquuq aan loo sheegin. dadkan waxay aaminsan yihiin markii uu dhaho guddiyaa tahay inaad tahay rufyaan dowladda u shaqeynayo. waana xaminsanahay waddanka amniga ka jiro waa la yaqaanaa si fiican u fahansannahay. qofkii la dhahay waa shaqeynay waxna loo sheegay darisaa tahay madaniyaa tahay ama guddiyaa tahay la dhahay haddana aan wax xuquuqa iyo amnigiisa la sugayn waxna la siinin. horta guddoomiyaha waxaa weydiinaa arrimaha laga damacsiiya dadka noocaas ah. dadka dariseynta ka shaqeynaya haa. midda koowaad. midda labaad dhalinyarada jaamiciyiinta la shaqaaleysiiyey wejiga labaad waxaa ka maqan xaqa ka maqan 3 biloodaa loo sheegay. 1 bil kamid ay qaateen 2 bil kamid way ka maqan tahay. qaabka uga maqan tahay looma sheegin. xilliga uu imaanaysa looma sheegin. intaasna way shaqeynayeen ayuu dalkooda u shaqeynayo haddana amniga jiro iyo duruuf jirta ku shaqeynaya. taasna guddoomiyaha waa weydiinaya xilliga markaas xuquuqda ka maqan haa. midda saddexaad waxay tahay nadaafadda. gobolka banaadir waxaa ka shaqeeyo kambaniyaal nadaafadaha ka shaqeeyo.
degmooyin kastana ka shaqeeya. haddii aa rabto marka haddii aanan dhalinyarada arabno inaad degmada nadaafadda wax ka qabanno, qof walba wuxuu leeyahay bishii $5 lagaga qaadaa, $6 lagaga qaadaa, ma ka qaban karo, wax kale ma samayn karo. kambaniyaasha noocaasana ma arkin weli ayagoo xataa inta voluntary sameeya hal laami xaaqaya. marka kambaniyaasha noocaas ah iyo gobolka banaadir nadaafadooda iskula shaqayn karaan. waata aad u mahadsan tahay abshir, aadan kugu mahad celinayaa sida aad su-aalahaaga u abaartay. dabcan guddoomiyuhu waa uu kaaga jawaabi doonaa insha allah. dabcan safkan soo aad gabadha geeska xigta nuur. magacaaga ku bilow fadlan, su-aashaadana toos u abaar. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. marka xigta magacaygu waa Sacdi Iimaan Maxamed. ugu horeyn waxaan salaamayaa gudoomiyaha oo aad u mahadsan barnaamijkan nagala soo qayb galay galabta, sidoo kale wariyaasha SNTV iyo dhammaan marti sharafta halkan isugu imaatay. haddaa sii gudagalo waxaan qabaa 2 su'aal iyo 1 talo. su'aalaha aan hormarsado, su-aasha koowaad waxay tahay canshuuraadka laga qaado bulshada ma laga yaabaa in loogu qabto adeegyada aasaasiga ee bulshada u baahan tahay, maadaama aan waxba laga arkin in dadka canshuur laga qaado isla markaasna aysan helin adeegyadooda aasaasiga ah. taasi waa mid kale waxay tahay gudoomiye waxaa hore u jiray mashaariicyo hore usoo socday oo laga shaqeeyey. mashaariicyadaasna waxaa loogu adeegayo bulshada ku dhaqan gobolka banaadir, iyadoo loogu qabanayo wadooyinkii hadday ahaan lahaayeen, leerarka hadday ahaan lahaayeen, hospitaliska hadday ahaan lahaayeen intaba. mashaariicyadaas hadda waa kuwa hakaday. sidoo kale mashaariicyadaas waxaa ka shaqeyn jiray dhalinyaro Soomaaliyeed oo wax baratay oo isugu jira haween iyo rag intaba. ma laga yaabaa mashaariicyadaas ama hay-adaha ka shaqeeya danta dadweynaha in la soo celiyo, isla markaasna ay jaanis u noqoto dhalinyarada ku dhaqana gobolka banaadir, kuwaasoo qaarkood aysan haysanin wax shaqaa iyagoo wax bartay guryahoodii jooga, si moralkooda uu u dhismo dhalinyarada. ma laga yaabaa gudoomiye hay-adahaas in dib loo soo celiyo? midda talada ah waxay tahay gudoomiye waxaa aad ugu mahadsan tahay maadaama aad tahay qof 10 sano wadankan joogay, isla markaasna caruurtiisa iyo reerkiisa uga soo tagay in wadankan uu yacni bulshadiisa wax taro, u adeego bulshada, kana qayb qaato dhibaatada Soomaaliya taalo, bulshadiisna kala qayb qaato. taasi waa kaaga mahad celinayaa. inta kula levelka ana waan ka codsan lahay inay taas sameeyaan. run ahaantii waxaa jiro bulshada ku dhex jira, ha ahaadaan rag iyo dumar intaba, dad aad moralkooda u jaban yahay, haba ugu badnaato haweenka iyo dadka waxbartay ee dhalinyarada ah. waxaad arkaysaa waxyaabaha qaar ee la bixinayo oo shaqooyinka ah in qaab musuqmaasuqa loo bixiyo. degmooyinka qaar waxaa jiro hadda shaqooyinka la bixiya lagu leeyahay, waxaa arkaysaa qof dhalinyaro ah ama hooyadiisa degmada ay ka shaqaynaysay. tusaale ahaan aniga hooyaday waa muhalgam, so waxay ka shaqayn jirtay abtusiyaad bar ilaa iyo hadda shaqaynaysay, isla markaasna iyadoo volunteer ku shaqaynaysay, isla markaasna maamadaas hadda waa retire. so waxaan rabaa inaan booskeedii galo. si aan booskeedii u galo waa in aan ka helaa mas-uuliyiinta aan ku xiranahay moralkeyga inay dhisaan. so hadday dhacdo in aniga maamadaydii retire ay tahay, isla markaasna usoo halgantay maamulkii, aysan haysanin wax xuquuq ah, isla markaasna imaanayso qof banaanka ka yimaaday in shaqo laga siiyo meeshii qaab musuqmaasuq ay ku baxdo. taasi waxay ka imaan karta marka cadaalad daro iyo dadkii aan yacni oo aan la kala saarin qofkii shaqeeyey iyo qofka aan shaqeynin. aad waa mahadsan tahay Sacdi. dabcan dareenkaaga waa la fahmay, su-aalahaagana waan qaadanay. taladan gudoomiyaha wuu maqlay. dadka dambe fursad sii, qofka ugu soo horeeya. بسم الله الرحمن الرحيم. marka hore waa idin mahad celinaya ilaahay subxaana qaadir ama hadda iskale. gudoomiyahan uu ku mahadsan yahay. anigu wax badan inaan galo ma rabo oo badi su-aasheeda qaarna asaa ka jawaab, qaarna gudoomiyaha ka jawaab. waxaan rabaa kaliya inaan sheego jidadkan xiran oo islaamaha masaakiinta oo qudaar Zahar Maxamed Axmed la yiraahdaa, waxaan ka socdaa bulshada rayidka. marka waxaan kaliya xun raba inaan weydiiyo xitaa dadkan hooyooyinkan afgooy qudaarta iyo soo qaadaya ama ka imaanaya dhinaca balcad oo jidadka ka xirmo ee saacad dambe inay qudaartooda keenaan suuqiyo laga tegay, dhibaato la kulmayaan. jidadkaas see loogu sahli karaa? iyo qarax markuu dhaco jidadkan hoteelada ay xirxirteen ayagana ood moodid magaalada inay dhinaca ka
see aygana in looga qaado jidka askariga jiifal in loo sameeyo aan annagana ummadda soomaaliyeed lagula talin lahaa sidii u ilaashanahay labadaasa su-aal waa mahadsantahay dabcan jidadka xiran ee magaalada kuwa laga soo gala ah iyo kuwa gudaha mararka qaarkood qaraxyada ay saameynta ku yeeshaan guddoomiye intaanan ku siin waxaan jeclaan lahaa waxaana la jooga guddoomiyihii hore ee shabeellada hoose dabcan maanta inuu gacanta taaganaya inaan 3 qofood aan siiyey martidii si keys aan noogu timidna uu ka mid yahay guddoomiye soo dhow adoo koobaya haddaad su-aal qabto ama talo nagu biirinayso بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أولا دقو مقالة قدوميها قبل كبنادر ولالكيغا عبد الرحمن يريسو وكو سلام يا بعض كالي يا كسوق بقلياشا هرتا waxaan dhihi lahaa qofkii mudnaa oo gobolka banaadir loo magacaabi lahaa ama qaban lahaa xilkan wuu yahay yariisow sababtoo ah 2009kii raggan iskala howlgalnay muqdisho oo jidka Maka al-Mukarrama uu ahaan jiray kumbareer ay ku yaasiin ama narkabood uu ahaan jiray ayuu ka mid yahay markii laga yimid Djibouti marka waxaan ogahay walaalkay yariisow saaxiibkayga kuma imaanin xarako kuma imaanin garab kuma imaanin koox kuma imaanin nin jeclaysi waa aqoontiisa iyo qalinkiisa ku yimid horta waxaan leenahay awguuriyo gudoomiye ilaahay garabka ha galo waxaan rabaa su'aalo gaagaaban inaan ku weydiiyo oo aniga horta waa Cabdiqaadir Sheekh Maxamed Nuur CD waa gudoomiye ku-xigeenka xarunta tala soo jeedinta Somali Think Tank Center arrimaha bulshada ka socda wax badan siyaasadda ugu maqasheen laakiin arrimaha bulshada waa gudoomiye caasimadda Soomaaliya Muqdisho waxaan filayaa hadda way balaaratay Soomaalidiina waa dhashayo haddii waagi reer guuraa la ahaan jiray baadiya la jiray kulli waa la soo guuray caasimadda la soo degay caasimadiina gobolka loo qaybiyay ismaamul goboleedyo lugiya la soo laabay waa magaalo xabsi ku jirta u yara egtahay Bersembio ama tusaale ahaan waagi 1960kii gobolada 8 gobol caasimadda Soomaaliya Muqdisho gumaysigii Talyaaniga aan iraahdo 60kii koor ama dawladda Futishaari Aadan Cabdulla Cusmaan iyo Cabdirashiid Cali Sharmaarki Cabdirasaaq Xaaji Xuseen raggii soo hogaaminayay waxa go'aan lagu gaaray odayaasha dhaqanka ama salaadiinta ama nabadoonnada ama malaaqyada ama boqorada ama isimada in caasimadda Soomaaliya Muqdisho ay 90 kilomitir dhinaca baraawana badan tahay su-aasha inaad toos okay waa soo gaabina waxa la region Banaadir la dhihi jiray gobolka Banaadir inta xaduud wax weeyada cadale dhinacan waqooyiga Muqdisho ama Jowhar marka dhaaftid dhinacan koonfurta waxa loogu dhigay baraawa loogu dhigay hatta caasimadii hadda kilomitir 0 ama hotel Doorbin hadii laga soo bilaabo ama Fiat waxay ku egtay Treedisho marka gudoomiye xal ma u haysaa dadkii oo dhan waa la wada yimid baadiya laga wada yimid qurba laga wada yimid gobolada waa laga yimid safaaradihii waxaan rabaa marka su'aashayda labaad gudoomiye amniga oo hadda laga cabaadayo marmar waxay jirta orientation jira degmo walba ama xaafad walba ama laan walba ma dhici kartaa orientationadaas inaad u furtid shacabka markii hadda waa la dhamaanayaa aan dhimanay waxba dhowramayno inaad ka dhigtid oo dadka la gubaabiyo oo shacabka xaafad walba loogu tago degmo walba loogu tago orientation waa maasantiin jeeyda waa ku salaama waa mahadsantahay jeyse ugu horeyntii abshir runtii horta aadan kaaga mahad celinaa arrinta darisayntana runtii saaba adaaba usoo joogay oo kasoo shaqeeyey oo runtii ahamiyadda gaarka ay leedahay iyo amnigana aada muhiimadda u tahay waxaana runtii rabaa inaan halkan uga mahad celiyo dhallinyarada abshir oo kale oo runtii barnaamijkaas darisaynta ka qayb qaatay oo si weliba voluntary ah daraasadda iyo buugga ay soo sameeyeen runtii mid dhaqangelintiisa aan hadda bilaabayno waayo oo aan ahmiyad gaara siinayno ummaddu waxeeda haddaysan lahaanin dhibaa ka imaanaya magaalooyinka kale ee dalka waa la socotaan magaalo walba waxaa moodaa dadka degan inay aada muxuu ahaa xil isaga saaraan amnigooda nadaafadooda canshuur bixinta laakiin magaaladan muqdisho waxaa moodaa in dhibaatooyinkii soo marmaray darteed dadku aysan weli dhankaas u bislaan lakiin waxaan rabnaa in ummaddu ay ogaato marka aad adiga wax isku qabato ayaa shacabkana wax u qaban kartaa dalkaagana wax u qaban kartaa arrintan kale oo cid allaale ciddii waxaa keliya
oo daahid ka dhacday qeybta UNDP-da oo arrintii dadka dhalinyarada ayagana daahidooda waxay ahayd farsamadii maamulkii maaliyadda oon hagaajinay ayaa waxay mareen process dheer. processkaas ma soo dhammaaday, bishii horena waa qaateen, bishaana maanta ayaanba uu processkeeda dhammaanayay. marka taas waa wax socda in allaale intii muddadii la ballan qaaday in dhalinyaradaas xuquuqdooda helaan waa helayaan. wax welwel nagu hayo waxay tahay muddadii loogu talagalay markay dhammaato maxaa dhici doono, waana tanaa hadda ka shaqayn doono sidii ay si joogto ah xuquuqdooda loogu heli lahaa. arrinta nadaafadda iyadana waa muhim si nadaafadda looga wada qayb qaato. shirkadahan oo private-ka suubinaya waxa la fiiriyey waxay laba arrinna waxay tahay sida ugu macquulsan nadaafadiina lagu samayn karaa, soomaalidana isla xisaabtan dhab u dhici karaa. marka maamulada naga horeeya shirkadahaas la galay heshiis, annaga waxaan ku qasabnay waxay tahay inaan siinay tijaabo muddo 2 bilood ah. haddii ay kasoo dhalaali waayaan in muxuu ahaa tallaabo laga qaadi doono. haddana qalabka nadaafadda ee soo degaya markuu yimaado waxaa arki doontaan isbeddel xawli ah. ayagii annagana waxaa jira xisaabtan dhab ah. arrinta socdi waa run, canshuurta haddii la bixiyo adeegyadii waa imaanayaan, laakiin dhibaatadana haysta waxay tahay yaa bixiya canshuurta, yaase laga rabaa. haddaan weydiiyo dadka inta fadhiya qof bixiya canshuur ma idinku jiraa? haye 3 qofaa taagtay. canshuurta aad bixisaan rabaa inaan ogaado marka adiga. taas canshuurtii dowladda federaalka waay. canshuurtii dowladda hoose weli ma bixisay? waa maya. marka waxaan ka wadaa haddaan canshuur la bixin adeeg bulsho see lagu helaa. marka adeeg si loo helo waxaan rabnaa in canshuurta la bixiyo iyo muhiimadda ay leedahay si adeega asaasiga loo helo. arrintan kale oo mashaariicdan muxuu ahaa hay-adihii dib loo soo celiyo, annaga waxaan rabnaa hore u socday ee hakaday mashaariicda socdi ma fahminaan, laakiin waxaa jira mashaariic hay-adaha ajaanibtu bixiyaan. mashruuc wuxuu leeyahay waqtigiisa hadduu dhammaado waxaa laga rabaa maamulka inuu mashaariic kala dalbado, ama annaga waxaan rabnaa in la isku tashado oo mashaariicdaas dhanba laga maarmo, annaga dhexdeena isku tashano. iyadana isku tashiga waa socdaa, mashaariicdana dhinacna waa ka wadnaa sidii loo dardargelin lahaa oo arrimaha hooyo aadaan uga mahad celinaynaa runtii kaalinta ay ka qaadatay. runtii dad badan waxaa jira Soomaali muddo waddankan usoo halgamay, dhiig u bixiyey, oon la iloobi karin, halyeyna ah. halka ciladoo timid waxaa waaye bacdama burburkii yimid dowladdii dhexe oo kabi lahayd qofkaas inuu markuu shaqada ka fariisto uu helo xuquuq ama retirement ayaa naga maqan. iyadana inaan bilaabno waaye si alla sidaan ku bilaabi karno. laakiin soomaalida dhaqanka ay leedaho fiican oo waalidiinta laga warqabo, iyada taasaa xoogaa moodaa inay na caawinayso. laakiin waa muhiim qof kastoo soo shaqeeyey u halgamay in xaq u yeesho. sidoo kalena caruurtooda si ay ugu dhiiradaan ayagana inay caruurtooda u tusaan in dalkoodu yahay. arrinta maama Zahra ay sheegtay runtii qudaarta jidadka xirxiran, arrintaas aad baan heedaha amniga ugala hadalnay. waxaan kala heshiinayna waxay ahayd baabuurta qudaarta sida in loo fududeeyo, loo sahlo, loona horumariyo. runtii taasna waa naga aqbaleen, iyadana waa sii hagaajin doonaa haddii cilado kale ay ka jiraan. arrimahan kale oo jidadka xirxiran runtii amniga iyo dee waa dad Soomaali ah inta magaalada imaadaan dad isku qarxinaya, taas sideen uga hortagnaa waay. marka dhagax keliya xal ma noqdo, waa ognahay. waxaan isku dayeynaa annaga si alaal sidii jidadka laga maarmo loo furi lahaa. muddada yaroon joogno waddadii gaadiidka booliiska waataan furnay. sidaasoo kale waddooyin badan ayaa jira oo aan ku tala jirno in la furo. amniga hadduu hagaagana dhammaan waddooyinka caasimadooda inay isku furnaadaan ayaan rajaynaynaa. ugu dambeyntii arrinta guddoomiye CD waa run orientation, hadda waa la hilmaamay ereygaas. degmooyinka xarumaha waxaan rabnaa inay noqdaan xarumihii bulshada isugu yimaadaan. waxaan bilaabnay isdhexgalka bulshada oo waxaan ku bilaabnay arrimaha isboortiga. waxaa noogu xiga arrimaha dhalinyarada oon rabnay inaan wacyigelinta ayagana ka sameyno. iyo ugu dambeyntii in la soo celiyo dokumentaariyada lagu fiirsan jiray iyo isbuuc walba la tegi jiray si ay dadka bulshada meelay tagaan ay akhbaarta ka helaan ay u sameeyaan. arrimahaasna qorshe ay noogu jirtaa. waana mahadsanta.
arrinta la xiriirta ballaarinta caasimadda maadaama dadka magaalada muqdisho ku nool ay kordhayaan hadda tiro ahaan oo gobollada dadku badankood laga imaanaya caasimadda nagu nool yahay ayadana maxaa idinkaga qorshaysan runtii magaaladan waa magaaladii caasimadda waa hooyadii ummadda soomaaliyeed yacnima dalkii federaaleyn uu noqdayna oo aada moodaba in hadda xuduudo laga hadlayo dalka dhexdiisa oo nasiib darro ah haddana annaga waxaan rabnaa magaaladan marka maqaamkeedii muxuua la guda galo in aan wada hadallo kala yeelano dowlad goboleedyada dariska nala ah sida koonfur galbeed iyo hirshabeelle caasimaddu si ay caasimad u noqoto oo runtii waa inay lahaataa baaxad ku filan waa inay lahaataa dhul ku filan annaga waxaan rabnaa sidii webiga uu u noqon lahaa meesha calaamad u noqon karta laakiin taas waa mid u baahan wada hadalkii iyo muxua markii xuduudaha la sameynayo gobolladii ayay qeyb ka noqon doontaa laakiin waxaa maragma doonta ah in caasimaddu ay fiday dadkeedana maalin maalinta ka dambe sii badanayo una baahan tahay in muxuu ay hesho dhul iyo deegaan ku filan waayo waxaa rabaa inaan ku weydiiyo guddoomiye intaan dadka ku laaban hal su-aal oo la xiriirta dabcan waxaad marka hore ka hadasheen inaad kormeer ku samaysaan xarumaha degmooyinka in la tago waxyo kale ay ka shaqeeyaan ma jiraa jid isla xisaabtan ah oo u dhexeeya guddoomiyaha gobolka banaadir guddoomiyaha degmada iyo guddoomiye waaxidyada runtii haa waa jiraa waxaan bilaawnay usbuuc walba kulan aan la yeelano guddoomiyaasha degmooyinka waxaa jira waax dhan oo xiriirinta degmooyinka u qaabilsan oo degmo walba wixii ay kulan ku ballan qaaday maxaa ka hirgelay maxaan hirgelin degmo walba waxaan bilaabnay inaan u sameyno meelaha ugu daran iyo caqabadaha ugu daran ay haysto sidii xal loogu heli lahaa qorshe howleed ayaa degmo walba loo dejiyey inay kasoo dhalaasho kasoo gudubto guddoomiye degmo walbana waxaan ka codsanay sidaan annaga u daadejinay maamulka inuu guddoomiye degmo walbana ama ay u daadejiso ama u daadejiyo maamulkaas oo waaxyihii iyo laamihii iyo falarkii iyo kontonkii guri ama 10kii guriba xitaa lasii gaaro taasna waa qorsho aan socno isla xisaabtan la-aanna wax hirgelaya ma laha marka taas waa wadnaa waana socotaa waaya aada u maasantay guddoomiye nuur waxaan kaa codsanaa wiilka agtaada ah inaad siiso yarkaas ha waaya magacaaga ku bilow su-aashaadana fadlan toos u abaar waqtiga aada noohay waxaa dhowr qofood inaan fursad siiyo haye asalaamu calaykum magacaygu waa yuusuf sugaal xasan kana socdo jaamacadda greenhome muqdisho soomaaliya aada u mahadsan yahay guddoomiyaha gobolka banaadir master cabdiraxmaan cumar cusmaan injineer hirisow waxaan qabaa laba su-aal su-aasha koowaad waxay tahay mudane guddoomiye waxaan ognahay suuqa soomaaliya ugu weyn inuu ku yaalo gobolka banaadir gaar ahaan magaalada muqdisho waxaanu kusoo laabtay marar badan dab ka kaca suuqaasi oo dhibaatooyin badan oo hanti iyo geysto macnaha maxay tahay waxaa idinka qorshaysan aad ku xaliili kartaan barnaamijkaas korontada dabka ay dhaliso su-aasha labaad waxay tahay ma jiraa mudane guddoomiye su-aasha koowaad waxay la xiriirtaa suuqa bakaaraha iyo su-aasha koowaad haddii aan kugu celiyo waxay tahay muqdisho waxaa ku yaalo suuqa ugu weyn soomaaliya oo ah suuqa bakaaraha marar badan waxaa dhacay in dab uu ka haddii aan sii wato marar badan waxaa dhacdo inuu suuqii ka kaca dab kaasoo hanti badan ay dad ay lahaayeen ay ku waayaan gobolka banaadir ahaan maxaa ugu qorshaysan barnaamijyadaas su-aasha kale waxay tahay mudane guddoomiye ma jiraa m c a jo free ah ay dadka macnaha baahiyaha gaarka qaba ay ugu faa'iidaystaan maadaama magaalada muqdisho isbitaallo badan ay jiraan kuwaasoo dadka lacag loogu qaado waa mahadsantahay aada u mahadsan tahay waaya gabdhaha gabadha dhalinyarada asi magacaaga ku bilow toosna su-aashaada u abaar fadlan bismillah asalaamu calaykum magacaygu waa istaag fadlan si lagu arko waaya magacaygu waa basuulo nuur cali jaamacadda gobolka ku yaala su-aasha marwnaan ku dheeraado barnaamijka su-aasha aan weydinaa guddoomiyaha waxa waaye waxaa jira ururka haween ee gobolka banaadir bisha februaayo dhexdeeda waxaa dhacday urur haween oo isbitaalada la jiifiyada lagu buufiyey sun
mana la garan sababta loo buufiyey lagu buufiyey sunta ka guddoomiye ahaan gobolka banaadir maxay ka dhaheen arrintaas way aad u mahadsan tahay dabcan guddoomiye waa uu kaaga jawaabi doonaa habeen nadaafadda ka shaqeynayay in la sumeeyey wiilka agtaada ahsi fadlan su-aashaada toos u abaar su-aal hore guddoomiyaha loo weydiiyeyna ha ku celinin bismillahi raxmaan raxiim magacii waa aadan ibraahim cumar kana socda jaamacadda simad marka hore salaamaya guddoomiyaha injineer yarisow aana duqa magaalada sidoo kale tv qarankan waa u mahadcelinaa su-aasha aan rabay inaan galo waxaa waaye guddoomiyaha wuxuu ka hadlay taxiska canshuurta si haddaa u fiirinna qof walba muwaadin walba waa inuu dhiiba guddoomiyaha wuxuu sheegay wuxuu dhahay canshuur toos ma qaadna waxaa qaadnaa khidmadda magaca noocee ayay qaadanaysaa haddii aysan ahayn canshuur waayo bulshada canshuurta ay ka qaadiin sidii la rabay looguma soo celiyo waayo soomaali waxay ku mahmadaa sidaa kugu soo laysa igumaadan habeen sidoo kaleeto bulshada canshuurta laga qaaday waxaa la rabaa si lamida in ayagana loogu soo celiyo oo waxyaabo loogu qabto su-aasha labaad oo aqab waxaa waaye waxaa laga hadlay waddooyin xiran guddoomiyaashii ka horeeyey waxay naga mudan yihiin sharaf waxay sidoo kaleeto ay sheegeen in waddooyinka xiran oo halbowlaha u ah magaalada muqdisho in la furi doono adi ahaan hadda sidoo kaleeto waa sheegtay aadan adoo mahadsan labada su-aal mid ay ku saabsan tahay canshuuraha dabcan guddoomiyaha ilaa 3 qofoodaa weydiisay waa uu ka jawaabay su-aasha kale ee haddana waddooyinka xiran ayadana sidaas oo kale waxaa maadaama aad tiri khidmada aad qaadaan magac u bixi taas su-aal ahaan guddoomiyaha ugu celi karnaa laakiin midda waddooyinka waxaan aaminsanaya guddoomiyaha hore uga jawaabay dadka kaa dambeeya fadlan fursad sii waayahay magacaa ku bilow toos oo abaar su-aashaada bismillah magacaygu waxaa la cabdinuur urur aqoon yahana aan ka socda saaya la yidhaahdo su-aalahan u gudbaa guddoomiyaha anigoo u mahad celinayo laba su-aal aan rabaa inaan guddoomiyaha weydiiyo midda koowaad waxaa waaye ii sheeg guddoomiye labada suuq ee magaalada muqdisho ku yaallo bakaaraha iyo suuq xamarweyne waxaa ka jiro ganacsato danyar oo waratada loo yaqaano dad shaksiyaad ah ayaa horey gadaal u raacdeysto mararka qaarna waxaa dhacda in mataqaanaa badeecadoo biyo loogu shubo ama wasaq loogu shubo ama la xumeeyo ama la iska garaaco mataqaanaa kolley meeshiina maamul ama degmadii maamulaa ka jiro maxaa kaa qorshaysan adiga isbeddel hortaa uma usan dhicin tan labaad waxay ahayd ii sheeg nadaafadda mataqaanaa degmooyinka waddooyinka marka la marayo oo kaleeto maqaayadaha waddooyinka u dhow laamigii oo mataqaanaa noo dhisay oo quruxdu badnaa waxaa bilicdiisa bedelay mataqaanaa maqaayadihii wasaqdii laga soo daadiyey ceelasha waddooyinka u dhow oo kaleeto sidoo kale ayagana waa kusoo daadiyaan xaafadaha sidoo kaleeto mataqaanaa tuubadii toos guriga wasaqda ugu soo qaado laamigay keentaa mataqaanaa isla meeshaasna guddoomiyaala ka jiro maca daalika oo cidlo ma ahan degmadaasi marka waxaan rabnaa maadaama guddoomiye madax meel koreelo salaaxa ma leh hadii aa guddoomiye aad tahay in mataqaanaa accountability dhab aa la timaadid oo mataqaanaa wasaqdaas caruurta yarta iyo dadka mataqaanaa aadaa u mahadsan tahay isla xisaabtan dhab ah oo la xiriira nadaafadda degmooyinka guddoomiye soo dhawow inkasta waqtigu aad noo hayo gabagabadiina aan ku dhownaada si kooban uga jawaab su-aasha ugu horeysa oo suuqa bakaaraha ee dabka kaca bismillahi raxmaan raxiim arrintan oo dabka runtii waa mid muddo yar oo joognay aan aragnay dhacdooyin fara badan waa dhab waana weliba qaarkood ay dad ku dhinteen qaarkood weliba qoys dhan maaragtay ku dhinteen runtii waa nasiib darro 2018 la joogo in arrimo dab guryo ka kaco ay dad ku dhintaan runtii annaga ka maamul gobolka banaadir ahaan gurmadka deg dega mar walba wuxuu diyaar u yahay inuu arrimahaas qabto bacdama dhacdooyinkan soo noqdeen dhibna ay noqotay meelaha baabuur debdemis ka imaanaysa iyo meesha dab ka kacay inuu waqti u dhexeeyo hadda waxaa noo qorshaysan in degmo walba aan ka samayno xarun debdemis si debdemiskii diyaar ugu noqdo islamarkiiba u gurman karo midda kale oo iyadana aan baaris ku samaynay shirkadaha korontada aan kala hadalnay waxaa noo soo baxaya waxay tahay in dadka guryaha ay muxua fiilooyinka ay korontada u isticmaalaan runtii inay yihiin kuwo naftirkoodii dhalin kara dabka oo runtii kuwo aada u raqiis ah qualitigooda aan fiicneen oo dhib ku haya bulshada inay jiraan waxaan wadnaa daraasad ah sidee lagu xaqiijin karaa in arrimaha fiilooyinka dabka dhaliyo dhan ee soo dega dalka
si loo hubiyo qualitigooda inay yihiin kuwo aan dadka dhib u keenayn. sidoo kale bulshadan waxaan u baahannaha wacyigelin oo ah waxyaalaha dabka keeni kara. uunsi inta la shito ayaa waxaa arkaysaa daaha agtiisa layska dhigay lagu hilmaamayo, meeshaasu ka dhalan karaa. qolooyin korontada waxay noo sheegeen in koontotooraha markii ay soo geliyaan wixii ka dambeeya la rabo dadku inay mas-uuliyaddooda qaataan. arrimahaasoo dhan marka waxaan wadnaa daraasad sidii looga hortegi lahaa, laakiin waxaan aada ugu mahad celinaha bulshada oo runtii ah bulsho u bisil una gurmata islamarkiiba. waxa dab dhacayna khasaaraheedana uu yaraa marka laysku fiiriyo, laakiin waa qorshe aan wadno, bulshadana aan rabno inay kaalin nagala qaadato. sideen ku joojin karnaa waxyaalahaas dabka dhaliya oo ay ka mid tahay fiilooyinkaas raqiiska guryaha oo la gishto. labo, sidii annagana aan kusoo badin lahayn goobaha dabdemiska oo aan si isla markiiba loogu gurmado. marka arrimahaasoo dhan waa arrimo aan aada uga shaqaynayno. arrinta kale dadka baahiyaha gaarka qaba runtii arrimahaas ahmiyad gaar ee noo leedahay annaga. waxaan rabno waxay tahay dhismooyinka cusub oo la sameynayo in dadkaas baahiyaha gaarka qabana accesskooda uu la mid noqdo dadka kale. sidoo kale adeegyada caafimaadka isbitaallada ha noqoto ama m c h-yadaba ayagana ay u fududaan karto. marka arrimahaasna waa kuwo aan rabno inaan hadda ka shaqeyno, laakiin bulshada aan ka rabno inay kaalintooda nagala qaataan. arrinta batuulo haweenka runtii waa nasiib daro in dhacdo ka dhacday degmada cabdicasiis haweenka qaar lagu buufiyey sun ama wax loo arki karo inuu sun yahay. weli baarisaa socoto, hay-adaha amnigu ay baarayaan, laakiin waxaan aada ugu faraxsannahay in haweenkii ay soo bogsoodeen oo hadda fiican yihiin. waa dhacdo cusub oo runtii matijaabay ahayd, weli baarisaan wadnaa. iyadana waxaan rabnaa shacabkan inay kaalin nagala qayb qaataan sidii dhacdadaasoo kale aysan u dhici lahayn. aadan runtii si bulshadu ay noola xisaabtanto, adeegyada bulshadana loo fuliyo, qof walba muwaadin waa inuu noqdo qof canshuur bixiyey si uu ula xisaabtamo. horta taasa kow aasaas ah. laakiin haddaan canshuur la bixinayn haddana la rabo in adeega bulshada la qabto isma keenayso. adduunka norway waa 5 milyan iyo denmark iyo oo kasii yar weliba. ayagoo saasa ayay deeq bixiyaan inta noo imaadaan anagoo 12 milyan ay lacag
mudane cabdiraxmaan cumar cismaan injineer yariiso oo marti ku ahaa barnaamijka dood furan ayuu ahaa. waxaan u mahadcelinayaa martidii kala duwanaa ee barnaamijka kasoo qayb galay, dadkii soomaaliyeed ee waqtigooda qaaliga ah nagu daawadeen naguna dhegaystay, iyaguna waa mahadsan yihiin. inta aan dooda soo socota ee dood furan ku kulmi doono dhammaanteedoo isku duwan waxaan idin leenahay nabadgelyo.